Soomaaliya waxay ka soo kabanaysay burburka iyo colaadii lagu riiqday dhowrkii sano ee la soo dhaafayna waxa sii kordhayay rajada ummadda Soomaaliyeed ka qabto inay dib u soo laabato nabadii Soomaaliya ee burburtay rubuc qarni ka hor. magaalada colaadu ragaadisay ee Muqdisho ayaa waxa qaybo badan oo kamid ah ka soo kabanaysay colaada. Dawladda Turkiga oo ahayd walaal Soomaaliya dhawaan yeelatay ayaa dalka ka waday mashaariic horumarineed oo kala duwan kuwaas oo qayb ka ah rajada Soomaaliyeed cusub. inkasta oo Soomaaliya rajo ka jirtay 5 sano ee ugu dambeeyay haddana marnaba ismay taagin masiibooyinka lagu ragaadinayay horumarka iyo nolosha ummadda Soomaaliyeed. qaraxyo aan kala joogsi lahayn ayaa joogto looga fulinayay magaalooyinka koonfurta Soomaaliya iyadoo badiyaa lala beegsanayo bulshada caadiga ah si meesha looga saaro rajada ummadda Soomaaliyeed ka qabto mustaqbal fiican iyo in mar u dhamaato colaadda lagu hoobtay. inkasta oo dawladda Turkigu ka wado gudaha Soomaaliya horumar laxaad leh haddana waxa hareer socday dilal iyo qaraxyo aan loo meeltayeen oo lala beegsanayay dadka shacabka ah. waxa qaraxyadan iyo dilalkan wada kooxo diimeedyo dalalka Carabta laga taageero laguna tababaray kuwaas oo dhaqamo gumaad iyo dil ah ku dhexmilayay diinta suuban ee Islaamka. si kasta oo aanu kala joogsanin gumaadka iyo qaraxyada ay wadaan kooxo diimeedyada xaq jirka ah haddana taasi marnaba ma jabin rajada ummadda Soomaaliyeed qabto. waxa si xawli leh u socdo horumarka dib loogu soo dhisayo dalka Soomaaliya. dawladda Turkiguna waxay dhawaan xadhiga ka jirtay xarun weyn oo ciidan taasoo 10,000 oo saraakiil ciidan ah loogu tababarayo Soomaaliya. dhismaha iyo casriyeynta jidadka magaalooyinka Muqdisho qaybo badan oo kamid ah ayaa xawli u socday. arrintan ayaa rajo ku abuurtay dad badan oo kamid ah bulshada Soomaaliya. xukuumadda Turkiga ayaa kumanaan dhalinyaro Soomaaliya waxbarasho heer jaamacadeed dalkeeda u geysay kuwaas oo qayb ka qaadanayay cilaaqaadka iyo isdhexgalka labada bulsho ee mustaqbalka. xiisaha bulshada Soomaalidu u qabto barashada luqadda Turkiga ayaa aad uga horumartay luqadda Carabiga waxaana boqolaal arday hadda gudaha Soomaaliya lagu baraa heerar waxbarasho oo kala duwan kuwaas oo ku baxa hanaanka manhajka waxbarasho ee dalka Turkiga. waana amuur muujinaysa sida ay Soomaalidu uga sii xiriir furmayso hanaanka waxbarasho ee jaamacadda Carabta oo ah halkay ka soo fulaan kooxaha wahaabiyiinta xaq jirka ah kuwaas oo Soomaaliya ka dhigay meel la isku qasho 15 sano la soo dhaafay. horumarka Turkiga uu ka wado Soomaaliya waxa barbar socday qas iyo khilaaf siyaasadeed oo wadamada Khaliijka Carabta ay barbar eriyayaan Turkiga kuwaas oo ujeedkoodu yahay dana siyaasi oo gaar ah oo Soomaaliya ka leeyihiin. dhawaan waxa Soomaaliya ka bilaabmay khilaaf siyaasadeed oo wadamada Carabta hormuud ka hayeen kuwaas oo lagu weeqayo awoodda dawladda dhexe ee Soomaaliya. waxaana dalka isku tagay Imaaraadka Carabta iyo dalka Sacuudigu uu mid waliba gaarkiisa u soo abaabulay una soo qarash gareynayay maamul goboleedyada gudaha Soomaaliya ka dhisan si loo weeqo go'aanka xukuumadda Soomaaliya ka qaadatay khilaafaadka ka taagan wadamada Khaliijka Carabta.